بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هو إنجنير أسد عبد الله الكتيري أكس كمباني اللي جوبا انتربرايز رير بدر إدرس كل شيء. تاريخ دي مركز هاد لبدي يكون يتبني تدوادي بشي كواد أيام نكل يا عبد الفتاح عمر حلانة إسلا وقت ياسناها أفهينكii Gobolka Banadir ayaan guri ka kireeyay gurigaasayto isaga waxa ii keenay nin dalaala ninkaas dalaalka ayaa wuxuu ninkan guri u baahno masuula nin dawliyo masuul ahaan aan guri ka kireeyay waxaan maaragtay kala qoranay heshiis bish 6 bilood lacagtooda bixiyay January oo 17 ilaa iyo January bishii 6 June oo bixiyay wixii ka dambeeyay heshiiskana waxa in 6 bilood u bixiyo wixii ka dambeeyay inuu lacag bixiyo uu diiday inuu gurigayga baxana waa diiday soo markaa power family iyo power dawliga ama shaar dawlad ii adeegsanay marka waxaan ka dacweeyay degmada Cabdicasiis bishii 6 ayaa waxaan ka dacweeyay oo bishii 7 oo sanadkii naga tagay 2017 ayaa waxaan ka dacweeyay degmada Cabdicasiis gurigana xaafadda Cabdicasiis ku yaala gudoomiyaha degmada uu awoodi kari waayay xataa inuu suuqa keenan isaga marka runta ka hadlo because markastaba anu wuxuu dhigi jiray inuu bari dambe xagga tahay sidoo uu email daalinay isla isaga ayaa wuxuu iga dacweeyay saldhiga bari ee X Orientale xaafadda Cabdicasiis ayaa wuxuu iga dacweynaya Cabdiftaah Umar Xalana saldhigii ninkuu u tagaayo wuxuu aan saldhigaas degan wax badan degmada deganaa yaqaana guriyeen hantideena wuxuu u sheegay uu ka diiday wixii wax macquul ma aha dadkaasna waan aqaana waxa yeelaysaa waxba kaagama ay dadaad wax guriyada maalgelin karto hanti ku sameyn karto ma waxa yeelaysaa niyo aniga ma yeeli karo isla maalinkaas oo stationka laga wacay aan tagay oo ninkaas oo ii sheegay saas uu ku yiri wuxuu iga wacay haddana maxkamadda gobolka Banadir isagoo warqada la keenay warqadii maxkamadda waxa biri imo biridii tagay dacwo uu isaga qorto ayaa la keenay leeyahay intaas oo $1,000 ayaa ninkan gurigiisa gashay ijaara ka gatay saasan yeelo wax noocaas amal ninkii oo garsoorka ahaa wuxuu yiri okay waa aragay wixii uu arkay ee ka soo jawaabay marka ka soo wuxuu guriga documentiskiisi ii keen maalinkaas talaadan joognay khamiista documentiskii oo wadato iyo guriyihiin hantidiina wakaalada u haysata keen wixii aan soo qaaday ciidamo oo ii sheegay ciidamadan oo baawarkan oo ii sheegay Cabdibilaah Soomaaliya aan wato ayaa ii imaaday anigu marka guriga ka soo baxay gaariga ku horgooyeen macala computerkayga mobilkayga way iga qaadeen ma bant way iga tageen waxaan ku tagay maxkamadda aan tagay maxkamaddii wuxuu igu dhahay oo wax macquul ma la imo document sura isla markii hadalkan kala dhaafay isla markii saa igu dhacday degmada Cabdicasiis meesha la jiray X mama Khadiija ayaan wargeliyay special nin la yiraahdo Yusuf Xundubay oo markaas amniga haystay ayaan wadi Yusuf wuxuu isi jawaab ah ma aha yiri aniga baabuurka tilmaamtay iyo noocaas ma aha yiri baabuurteeda way joogeen wax noocaas igu qanciyay waxaan u tagay garsoori waxaan garsoori asaas wax igu dhaceen saas arinta wuxuu yiri aniga war badan mar waxaaga soo raasay ninka waxa ku dacweysay ninkan attacking noocaas igu sameeyay even hatta guriga sabroogiisa isaga ayaa haysto ma fahamtay waan soo baxay waxaan imaaday Allah musta'an anoo arinta halkaas ii marayso ayaa hadana CID laga wacay isaga dacway CID nin yaado Maxamed Xuseen Sanleere oo Cornel ah isla markaa isaga hatta guriga deganaan jiray ayaa ilaa kiiska loo geeyay isagii kiiskii markuu arkay wuxuu dhahay orniyo waxa yeelaysaa waxaan aqoon fiican u leeyahay waxa yeelaysaa arintan iska daa ninkaas sida xaqa u kala baxa uu ka diiday kiiskii wuxuu ninka aniga kalsooni kuma qabo waa laga wareejiyay nin kala loo dhiibay oo yiraahdo Cabdiftaah Shaati kiiskii uu soo gooyay isagii wuxuu u hanjabaaday inuu dilay haddana hawshan ka hari waay and then haddana labadii sarkaal oo hawshaas wado CID-da ayuu haddana hortooda ku hanjabaaday oo yiri waa dilay ninkan ayagii waa ii sheegeen qoraalkii taqriirka soo qoran dhaleedika taqriirkii qoreen waxaan leegeeyay Allah musta'an maxkamadda gobolka Banadir qaybtan xeeraalinta ninka hadda gobolka Banadir maxkamadda gobolka Banadir ka ah
gudoomiyaha ayaa markaas wuxuu ka ahaa kusime oo ii sheeg xeer ilaalinta oo ii wacay waan saaray wuxuu bridii baan imaaday bridii markaa imaaday wuxuu marqaatiyaashaada wixii aawo macala dalaalkii marqaatiyaashii iyo nimankii guriga markaan dayactirayo joogay oo dhisan ayaa imaaday wuxuu yiri waxaas inuu warkooda ugu dhageysan waaye af wuxuu igu dhahay kiiskan ilaa aniga mar damba kaa waco mala soo hadal qaadi karo way igu wacaysa mar dambaan ku haddaan taaganahay taqriirka CID da waa kana ninkan wuxuu ugu sameeyay wax kasta cadayntooda ku haya wuxuu yiri ninka hal xiro aniga ninkii dalaalka ah yiri hal xiro waxaan dhahay ninka la yiraahdo Muuse dalaalka waana la xiray waana la kixiyay marka dhex sii mareen lambar 4 x equator amarayno ayuu telefoonka soo daba diray wuxuu iska sii daaya kiiskaanaytana ma ka hadli kartaa lagu lahaa waa kama hadlin kama aamusin ma ka harin waxaan u tagay General Liban Yarow aan u tagay generaalka wuxuu yiri okay maxamed hadii inuu dulul ma dhici karo yiri bal waa ogaayna arrin oo soo raacay wuxuu la yimaado xafiiska xeer ilaalinta Muuse kiiska ka soo qaaday nin la Sheekh Xasan ayuu u dhiibay Sheekh Xasan wuxuu yiri kiiskan adiga soo bar Sheekh Xasan kiiskii markuu dhowr baris ka soo keeday celinayo maalinka kale oo dhowr October ka bacdi wuxuu ugu dhaanay waxa yeelaysaa waxaan ku soo diray nimankaas arrintan negotiation kala soo gal iskala soo heshiiyay waxaan ku yiri ninka niman ehelkiisa ku soo diray waxaan yiri aniga wax eheliya ma rabo iyo wax laga galaayo dhexdhexaadin ma u baahni sharcigaas wuxuu qaba in la igu fuliyo ama wax la igu furshaan diyaar ah wuxuu yiri kiiskaaga markii dambe wuxuu yiri ma aha madani kiiskaaga waxa dhacay oo dhan oo ilaa xorigaanta CID wax u mar wax lan qalad ahayn kiiskaaga madani waaye waxa uu gudbiyay maxkamadda gobolka Banadir goormii dhaay 2 bilood ka bacdi ilaa marka hadalka imeermeeriyay oo aan meel wax ka qabto aan waaye iska aamusay aan 2 bilood ka bacdi wacay message-kii xataa u qoray waan hayaa 2 bilood waxay bishii August ma fahantay marka June iyo July wuxuu way jawaab way sii waaye anaga ku wici doonay igu meermeerinayeen June iyo July way dhamaatay August ayaan la hadlay telefoon aan u diray ay qaban waayeen message u qoray way iga soo jawaab waayeen waa la joogay muddo ka bacdi haddana aan ku laabtay wuxuu igu dhahay kiiskaaga madani ah waxaan u wareejiyay maxkamadda Muuse weydiinaysa Muuse waa ninkii aniga dhahay oo ku xir hadda arrinta ka hadasho fahad marka haddii sharci nidaam jiro waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliyeed isbishada madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha duqa magaalada injineer Heeysto way garanayaan injineer Heeysto aniga injineer oo jaamiciyo ka baxay jaamacadda Gahayran ahaa ninkaas waxaan ka codsanayaa in ninkaas sharci lagu kala saaro ma fahanti guriga hal la tago dariska hal la weydiiyo wixii qalad igu soo baxo yaana bun leeyaga dhimin walakin ninka wuxuu ii sheeganayaa awood dawladnimo iyo qabaa'il aniga nin Yamani Soomaali muwalad Arab Soomaali ayaan ahay ma fahanto dalkan Soomaali abiis ku dhashay inaa ku dhashay in fact wax dadka dawladda ku noolaan kara ama dawlad ku noolka ama dawladaha harsada ayaan kamid ahay mi dadka awood la taagan banaanka la taagan mi sida hadda ninkan hadda koor wuxuu igu yiri xataa markaan wada hadal wuxuu igu dhahay adiga Arab wax badan oo adduunyada ku leedahay in xataa gabar igu dartaan ahayd kuma ina guri weydiiso xataa ma ahayn oo igu yiri marqaatigeedan waan hayaa 3 nin oo waaweyn oo muqdaro islaam ummat Maxamed ayaan u hayaa haddii islaamnimo jirto dawladnimo jirto nabad iyo nolol waxaan ka codsanayaa ninkaas in sharci Ilaahay nagu kala saarto iyo sharciga dawliga oo u yeelo qawaaniinta u taala dalka intaas ayaan codsanayaa waxa kale oo ii weheliya tahdiidka gurigayga xataa jidkiisa ma markano adiga gurigayga iyo gurigaas labadeeda guriga isku dhaweeyay agtiisada soo maray in shaxabood lagu lufto ayuu amar ku bixiyay ragii joogo marqaatiga ahna waan hayaa waan keen karaa si uu leeyahay soo istaajin kara diilba la dhageysanayo ahaan sida Muuse ii galay adeeyan ahaan wada dhageysanaa diil hay waa keen karaa waana iimaanayaan waana kitaabka Ilaahay xataa kaga bixina la mari karaa marka intaas ayuu codkaygu koobaya codsigaygu waxa waaye wixii halayga sii wuxuu lacag u bixiyay waxa ugu dambeysay June 17 up to now 1 penny kama hayo gurigeena uu iska haystaa marka haday dawladnimo wanaag iyo sharaf jiro waa in waxaan rabaa in dawladda ay si asxaan islaamnimo dawladnimo Soomaalnimo in waxiga ninka laga sii tahdiidkii ugu hayana laga hadlo continue ciyaalkiisa staffka way soo wacaan hadda jidka maro ama ilmeyga ay maraan way soo wacaan waxay ku leeyahay waa ku dilayna la yiraahdo ama waa ku yeelayna waa ku sameeyna ma fahant marka hadduu sharci jiro nidaam jiro ninka isaga hal laga qabto waxiga hal laga qaado hana laga siiyo intaas oo bilood lacagna waa ku leeyahay marka ala guri bishii wuxuu kiraysan $250
up to now ma bixin June 17 to now wax shilna kama aan hayo wixii waa u baahanay gurigay waa u baahanay almost duu sharci nidaam jiro ninkaas laga saaro especially ra'iisul wasaaraha khaasiyay ra'iisul wasaaraha duqa magaalada iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka booliiska aad iyo arintaas aad kaga codsanaa haday jirto Soomaalnimo iyo ay jirto wax la yiraahdo ishaq isxaaq dowlad iyo sida ay ku qudbayaan ay ishaq madaxda Soomaaliyeed haday exactly wax ka jira wax laga qabanayo dad badan oo kale looga qabtana waan arkay hadda aniga inta wax u aamusan media uga hadli waaye waxa way xataa engineer yariiso aniga hadda koor waxaan ku kulanay stadio Conis waan u sheegay xataa si faaca u wada hadal u sheegay nin buu igu reebay ninkii imeer oo ii suurtoobaysay laakiin haddii aan la kulmi lahaa waa isdhihi lahaa inuu injineerku wax ka bedeli lahaa marka sidaa darteed waxaan idinka codsanayaa dowladda iyo madaxda sharafta leh Soomaaliyeed inay arrintaasi wax iga dhahaan khaasiyan ra'iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha taliyaha ciidanka booliiska taliyaha CID-da waa ogeen korneel la yiraahdo محمد حسين سنديري وينك تقريرك حتى أنا ما أرتاح سوق قري تقرير كيلو وان هايا نكل هذا إيشك هالريالي جوجي دقيقة جوجي محكمة ده نكل شيء حسن حتى ورقدي قارو كله رهيب وحبا كاكل لمن مالنتي ما فهمت كدي يقول هذا وخياه يتصوب ورقاص وكام قيم مالنتي أنا ورقدي كيس كله كومبليدا هي CID سوريس نك سوري جينا وأنا إسلا حد كشقي حفيزك قدوميها المحكمة ده ما تفتحش هتيجي دو إلهي كعب سنين الصومالية ولا ويدين كلا أنت سأقول بحياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته